wiilkan oo 17 jir ah oo ku noolaa Shiinaha oo lagu magacaabo Xanuun ayaa iibiyay kelidiisa si uu u iibsado iPhone 4 oo kaliya. Xanuun ayaa la xiriiray dadka iibsada keliyaha iyo xubnaha jirka kadibna waxa ay ka siisteen $3,000 oo kaliya. Kadib markii kelida laga saaray asagii oo iPhone 4 gacanta ku haysta ayuu sawiraan iska soo qaaday si uu asxaabtiisa iyo dadka faniskiisa uu u bootay oo iska dhigo inuu ku nool yahay nolol aad iyo aad u fara badan ee u qurux badan yaani uu ku faraxsan yahay lacagna uu helay iPhone 4 uu helay ayuu rabay inuu dadka asxaabtiisa u muujiyo balse maxaa ku dhacay kelidiisii kale caafimaad qabtay ayaa isku bedeshay mid aan caafimaadka wanaagsanayn kelidiisa ayaa dhaqis lagu bilaabay lacagtii kale uu soo hartay iPhone ku soo hartay waxa uu bilaabay inuu kelidiisa ku dhaqo kadib markii uu kelidiisa ku dhaqay lacagtii kale uu soo hartay lacag fayl uu noqday xaaladiisa caafimaad ay ka sii dartay hadda waa sariiryaal sariir ku tiirsan hadaba ma sameyn lahayd sida ninkan oo kale inaad xubnaha jirkaaga aad u iibisid si aad maal adduun u heshid adigoon fiirsanin caafimaadkaaga iyo tandantaada iyo mustaqbalkaaga iyo noloshaada hantidu waa la kala qaadaa physical and non physical adiga hantida haystida physicalka non physicalka hadii aad ugu bareertid inaad ku iibsid hanti physicalka waxaad kala dhaxli doontaa ama ka faa'iidi doontaa waxaan wanaagsanayn totally hadii aad videogan ka heshay qolna like saar sidoo kale kanaalka aad nagu subscribe follow na soo dhaafda Facebook page ka naga daawanaysa